رئيس الوزراء حكومة فدرالك الصومالي محمد حسين روبلي oo booqasho rasmi ah ku jooga dalkan qadar gaar ahaan magaalada Dooxa ayaa saaka waxa uu yeeshay kulamo kala duwan ugu horeyn waxa ra'iisul wasaaraha qaabilay oo la kulmay amiirka dalka qadar kaasoo ay ka wada hadleen arrimaha Soomaaliya waxaana uu ahaa kulan sharafeed inta kadib ayaa kulan kale oo weyn waxa qaatay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha dalka qadar ahna wasiirka arrimaha dibadda Sheikh Khalid bin Khalifa Al-Thani waxa sidoo kale xigay kulan balaaran oo ay qaateen wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale wasiirada dalka qadar kaasoo labada dhinacba ay uga wada hadleen iskaashiga labada dal arrimaha siyaasadda dhaqaalaha iyo doorashooyinka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya markii uu la kulmay boqorka dalkan wuxuu faahfaahin ka siiyay doorashada dalka ka socota horumarada laga sameeyay iyo sida hadda ay xaaladda Soomaaliya maaragtay ugu jirto xilli doorasho waxa uu uga mahad celiyay guud ahaan dalka qadar taageerada ay siiyaan dalka Soomaaliya iyo mashaariicda horumarineed ay ka fulinayaan ka mid tahay dhismooyinka wadooyinka sidoo kale qadar waxay saaxiib muddo ah dalka Soomaaliya waxaana jira mashaariic ay muddo dheer soo wadeen oo ay ka mid tahay ay waday mashruuc la yiraahdo qadar jaarata ama taasoo aqoomaha iyo dad kale oo kala duwan ay ku caawinaysay marka kulanka dambe ee balaarna saacadaha badan qaatay ayaa madaxda labada dhinacba waxay aad u gudagaleen sidii iskaashiga labada dal iyo horumarada maaragtay loo sii badin lahaa waxa sidoo kale shirkaasi goobjoogka wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Cabdirasaaq oo dhawaan ka qayb galay sagaalkii bisha shir ay kula hayeen dalka Masar wakiilada jaamacadda Carabta kaasoo looga hadlayay sidii arrimaha doorashooyinka Soomaaliya loo caawin lahaa qadarna waxay ka mid tahay dawladaha ballanqaad ka sameeyay waxaana si rasmi ah loo sheegi doonaa kaalmadaasi inta ay la eg tahay hadii ay baydmo marka guud ahaan kulanka maanta ra'iisul wasaaruhu uu qaatay iyo kulamada kala duwanba waxay ahaayeen kuwa maaragtay ku dhamaaday si wanaagsan jawi habboon ku soo gabagaboobay